عويسي wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London wararkeena waxa ugu waaweyn hay'adda Human Rights Watch ayaa maamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya ku eedeysay jirdil maxaabiista ah garaacidii habeenkaas la igu bilaabay waxaan ku jiray muddo 5 bilood ah dalka Suuriya waxaanu eegaynaa xaaladda dadka ku xaniban meeshii ugu dambeysay mucaaradku haysteen oo ciidanka dawladuna ay duqeynayaan caawana cisbitaal ku yaala Hargeysa ayaa markii ugu horeysay lagu sameeyay qalliin bukaano indhaha lagaga bedelay oo il kale loo galiyo Mareykan laga keenay warbixin cusub oo maanta ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in dadka lagu tuhumo inay ka tirsan yihiin ama ay taageersan yihiin ururka ONLF ee gobolka Soomaalida Itoobiya xadgudubyo loo geysto qaar ayaa la jirdilay dumarkana waxa lagu kufsaday xabsiga dhexdiisa sida ay hay'addu sheegtay mid ka mid ah dadkii dhibtu soo gaadhay ayaa BBC-da la hadlay ilaa muddo 5 bilood ah waxa la igu waday jirdil markii la igeliyay waxa la iga saaray dharka waxa la igu soo reebay buume iyo garan yar oo fiina garaacidii habeenkaas la igu bilaabay waxaan ku jiray muddo 5 bilood ah waxa la igu xiray qol yar oo aan lahayn aadan jiibsan karin qolku waa qol yar oo sibid ah oo aan gogol lahayn haddana biyo lagu shubay barkad yar oo qolka aagiisa ku taala ayaa lagu ridi oo biyo ah aad u qabow jigjiga si guud waa meel qabow inta badan marka seexad ma jiro chief ma jiro dabcan taagmina ma jirto waa rafaad weey marka sida ii sheegtay qof yar ayaad ahayd marka bal ka waran shakhsi ahaan sidee dhibaatada sadda aad iiga sheekaysay aad dareentay waxa dhacda habeenkii aniga oo ku qarweeyay inaan marka qaarkood soo tooso yani dhibaatadii iyo jirdilkii goobtaas aan kala kulmay haddaba Cabdilaahi Xasan waxa uu ka mid yahay howlwadeennada Human Rights Watch ee Afrika wuxuu ka hadlayaa waxa ay ku saleeyeen warbixintoodan warbixintan waxaan ku saleynay waraysiyo aan la yeelanay 100 qof oo ay ka mid yihiin 70 qof oo hore ugu xirnaa xabsiga jeel ogaadeen dadka ayaga meelo badan ayaan ka kala waraysanay wadamo badan ayaan ku waraysanay sidoo kale waxaan daawanay muuqaal 25 saacadood soconaya oo ah qiimeyn ay isku sameeyeen ciidamada ilaalada xabsiga jeel ogaadeen oo halkaas ay ku qiranayaan ayaga laftirkooda in kufsi iyo jirdil ay u geysteen dadkii maxaabiista ahaa ee xabsiga ku xirnaa dhibaatooyinka aan ku ogaanay warbixintan ee dadka ay noo sheegaan waxa kamid ah in gabdhaha la kufsan jiray ragga iyo dumarkana la jirdili jiray la ceebeyn jiray ayagoo qaqaawan inta banaanka loo soo bixiyo la dhihi jiray iscaaya oo dadka hortooda lagu qaraaci jiray waxaa noola sheegay cunto badan in cunto aan la siin jirin oo gaajo qaarkood ay u dhinteen waxaa noola sheegay caruur badan inay xabsiga ku dhasheen oo caruurta ayaga qaarkood ay yihiin kuwa ku urgalay kufsi ay u geysteen ilaalada xabsigaas dhinaca kalena khadka telefoonka magaalada Jigjiga ayaan ku wareysanay madaxa agaasinka xiriirka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdideeq Maxamed Cabdi oo isagu beeniyay warbixintan in nabadiid ah baa meeshan joogay intii nabadiidka ahayd sidii loola dhaqmay Human Rights Watch hadday tahay dhexdhexaada dhinacayna wax ka aragtay waxbaa la baray aqoon baa la siiyey aragtiyo toban aragti ka duwan oo ah inay Itoobiya isbedeshay Itoobiya cusub tahay horumar tahay kadibna waxaa loo furay mataqaanaa farsamo xirfado kala duwan oo ay nolol maalmeedkooda wax kaga bedelaan maantana shaqada magaalada Jigjiga dadka wax soo saarka ugu faraha badan uu iibkeenaya waa dadka xabsiga caayisaan mataqaanaa ka soo baxay faahfaahin dheeraad ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa
bogga bbc.com/somali adigoo ka gelaya moobilkaaga. dagaal culus ayaa ka socda koonfurta Suuriya iyadoo ciidamada dawladdu wadaan duulaanka ay doonayaan inay ku qabsadaan magaalada Darca oo ah deegaanka ay ku hadheen jabhaduhu. dhowr jeer ayaa la isku dayay in la sameeyo xabad joojin laakiinse ma suurtagelin iyadoo markii ugu dambeysay lagu guuleysan waayay Arbacada aynu soo dhaafnay. Cabdixaafid Caawil Ismaaciil ayaa inoo haya. duulaanka inaanu ka soo warranno way adag tahay iyadoo aanay dowladdani u oggolaan BBC-da inay u socdaasho koonfurta. ahmiyadda ugu weyni waa magaalada Diira. istaraatiiji ahaan waa muhiim. waxay kulaashaa soohdinta Jordan waa halkii ay ka bilowdeen dibadbaxyadii lagaga soo horjeeday madaxweyne Assad 2011. ciidamada Suuriya qunyar ayay ugu sii durkayaan iyagoo isticmaalaya hub culus, Ruushkuna taageerayo. jabhadaha qaar ka mid ah oo muujinaya sawirro dagaalka ah ayaa sheegay inaanay isdhiibi doonin. Maraykanka oo qaar ka mid ah tababaray hubna siiyey waxa uu u sheegay inaanay taageero ka filan. qaar kalena waxa ay waanwaan kula jiraan Ruushka sidii ay isu dhiibi lahaayeen. dad rayid ah ayaa la dilay. waxa la aaminsan yahay inay halkani tahay tuulada Musafir toddobaadkii aynu soo dhaafnay duqayn cirka ah kadib. wararka deegaanku waxa ay sheegayaan inay 22 qof oo 12 ka mid ah ay carruur ahaayeen ay ku dhinteen. dadka badbaaday iyo kuwa dhintayba isku mar ayaa la geeyay cusbitaalka. waxa kale oo la sheegayaa in cusbitaalkana la duqeeyey. meydka markiiba waa la aasay iyada oo aan jinaasad loo samaynin. aaskii kadib tuuladan ciidamada ayaa qabsaday. dad badan ayaa ka barakacaya dagaalka. qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee gargaarka waxa ay ka digeen badbaadada dadkaasi. Jordan waxa ay oggolaatay in gargaar laga gudbiyo soohdintooda, laakiin iyada oo ay iminka ku sugan yihiin qaxoonti reer Suuriya ah oo ka badan 1 milyan uma oggolaanayaan qaar kale. qaxoontigu waxa ay isugu urureen dhinaca soohdinta buuraha Golan Heights ee ay Israa'iiliyiintu haystaan. gargaar ayay iyaguna soo direen, laakiin xuduudoodu way xidhan tahay. ciidamada Suuriya waxa ay ka dabaaldegayaan magaalooyinka ay qabsadeen, maaha kuwa ugu dambayn doona. dowladda gobolka iyo Maraykankuna waxa ay u muuqdaan inay aqbaleen in ciidamada Suuriya iyo Ruushku ay ku guuleysan doonaan dagaalka koonfurta ka socda. dagaalku si weli ma dhammaan, laakiin madaxweyne Assad dalka si buuxda ayuu u haystaa, cadowgiisana mid ayuu u baabiinayaa. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. wejigii hore ee suuqa ganacsiga xorta ah ee Shiinuhu dhisay oo loogu yeedhay kii Afrika ugu weynaa ayaa laga furay dalka Djibouti maanta. waa 50 kiiloomitir oo isku wareega, waxaana la dhisay warshado iyo bakhaaro, meelaha alaabta laga dhoofiyo iyo weliba goobo adeeg. waxaa la filayaa inay 7 bilyan oo baayac mushtari ay halkan maraan, isla markaana 15 kun oo qof shaqo ka helaan marka uu dhammaado. wasiir hore uga tirsanaa dowladda Israa'iil oo lagu eedeeyay inuu Iiraan basaas u ahaa ayaa maxkamad maanta la keenay. Gonan Segef oo ahaa wasiirka tamarta ee sagaashameeyadii ayaa loo haystaa inuu Iiraan siiyay macluumaad ku saabsan suuqa tamarta, goobaha xasaasiga ee Israa'iil iyo madaxda sirdoonka. garyaqaankiisa ayaa sheegay inaan kiiskiisa laga hadli karaynin. booliska New York ayaa xidhay qof dumara oo kortay taalada xorriyadda iyadoo ka cabanaysa siyaasadda qallafsan ee madaxweyne Trump kula dhaqmayo soo galootiga. dalxiisayaashii halkaasi joogay ayaa laga daadgureeyey. 3 saacadood ayaa la isku horfadhiyey. booliska ayaa xadhko isticmaalay si ay u soo dejiyaan haweeneydan. labada dal ee ugu dhaqaalaha badan dunida ayaa cunaha is haya oo waxay ku wada jiraan dagaal ganacsi. labadaasi dalna waa Shiinaha iyo Maraykanka. Maraykanka iyo Shiinaha haddaba sidee bay u saameyn karaysaa dunida inteeda kale, gaar ahaanna jeebkaaga? warbixin ku saabsan dagaalka ganacsi waxaa inoo haya Maxamed Xaraare iyo Caaisha Afrax. qiimaha jeeniskaaga, taleefankaaga, daladaada iyo bombolooyinka carruurtuba waxaa suuragal ah inay qaaloobaan mustaqbalka dhow sababtoo ah Maraykanka ayaa canshuuro ku kordhinaya alaabada lagu sameeyo dalka Shiinaha. haddii aan sharaxo, Maraykanka iyo Shiinaha waxaa ka dhexeeya dagaal ganacsi. dagaalka quwadaha waaweynna wuxuu saameyn ku yeeshaa dunida inteeda kale. waa maxay dagaal ganacsi? waa marka dal isku dayo inuu waxyeeleeyo ganacsiga dalka kale isagoo saaraya canshuur dheeri ah waxa u dhoofa iyo waxa ka yimaada dalkaas. haddaba maxaa inaga khuseeya? waxaa laga yaabaa inaad isticmaasho alaabo badan oo la soo dhoofiyey. haddii aad muuqaalkan ka daawanayso iPhone-kaaga, waxaa lagu hindisay Maraykanka waxaana lagu sameeyey Shiinaha. qayb ka mid ahna waxaa laga keenay dalal kale sida Japan iyo South Korea. sidaa daraaddeed, haddii Maraykanku kordhiyo canshuurta waxay saameyn ku yeelanaysaa dhammaan shaqada iyo shaqaalaha dalalkaas.
sidoo kale si loo maareeyo qarashka soo kordhay waxaa khasab noqonaysa in qiimaha alaabaha lagu kordhiyo dhammaan macaamiisha dunida. maxaa sababay dagaalkan ganacsi? madaxweyne Trump wuxuu doonayaa in alaabo badan lagu sameeyo Mareykanka gudihiisa si uu kor ugu qaado warshadaha iyo shaqaalaha dalka iyo inuu wax ka qabto isdhinka ganacsiga. Iminka Mareykanku wuxuu Shiinaha ka iibsadaa alaabo ka badan inta uu iibgeeyo. Shiinuhu dhankiisa wuxuu doonayaa inuu noqdo hoggaanka tiknoolajiyadda adduunka, wuxuuna la yimid qorshe lagu meelmarinayo hindisaha Made in China 2025 ama waxaa lagu sameeyey Shiinaha 2025. xaaladdu halkay iminka maraysaa? Mareykanku wuxuu canshuur ku dalacay alaabo kala duwan sida biraha iyo aluminiyamka. canshuuro kale oo badanna wuu ku hanjabay. Shiinaha ayaa arrintaasi ka jawaabay iyagoo dhankooda canshuur saaray alaabo Mareykanka uga yimaada sida digirta. haddaba yaa dagaalkan ka faa'iidaya? dabcan dalalka laga yaabay in ay buuxiyaan booska isla markaana alaabo ka iibiyaan Mareykanka iyo Shiinaha sida wax soo saarka suufka ee Bangladesh, warshadaha boombalooyinka ee Mexico iyo tuliinka dharka ee Vietnam. dhaqaaliyahanaduuse waxay isku raacsan yihiin in xilliga dagaalka ganacsigu jiro dhibta ugu badan inay soo gaarayso macaamiisha iyo dadka caadiga ah. caawiyo ciyaarahana Brazil ayaa soo gaadhay magaalada Kasaan ka hor inta aanay ciyaartooda galin baska markay ka soo dageenba aad ayaa loo soo dhaweeyay. tan iyo koobkii adduunka ee lagu qabtay Mareykan 1994 Brazil weli kama hadhin ciyaaraha rubc dhamaadka, laakiin se imika 7 gool bay dhaliyeen. Belgium ku la ciyaarayeen ayaa hogaaminaya gool dhalinta. magaalada Hargeysa waxaa markii ugu horeysay lagu sameeyay qalliin indhaha ah oo bukaanka loogu galiyay il qofka loo lahaa. qalliinkaas ayaa lagu sameeyay ilaa 7 qof waana lagu guuleystay sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. wariyaha BBC da Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad ayaa tagay cusbitaalka oo warbixintan ka soo diray. waxaan ku suganahay cusbitaalka indhabeerista loogu sameeyay 7 qof. dhammaantoodba waxaa aad u liitay araggooda ka hor intii aanay fursadan helin. waxaa laga saaray wiilka madow ee ishooda iyadoo loogu bedelay wiil la mid ah oo laga keenay waddanka Mareykanka oo ay lahaayeen dad dhintay oo Mareykan oo ku dardaarmay intaanay geeriyoon ka hor in indhahooda looga faa'iideeyo cidii u baahan. waxa kamid ahayd waxyaabaha dhadhow oo kale ma arki jiray, laakiin waxyaabaha fog ma arki jiray. iminka alxamdulillah way soo fiicnaanaysaa, meel fog wax ka arkeen. dadka fursadan ka faa'iideystay oo 7 ah ee hooyadan ayaa kamida oo halkan wiil loogu qalay. bal wiilkaaga xaaladiisa iga waran waxa iska bedelay intii fursadan qalliinka uu helay? ma sha Allah buu ku jira, aad buu arkayaa. waxa jiray wiil hore oo aad qashay saan maqlay oo dibadaha aad ku qashay. lacagta ku kacday waxay noqotay oo ku kacay 35,000 oo dollar oo dawadu ku jirin. marka ala kulli xaal kana kun baa loogu dalbay, kunna markii dambaana laga qaaday aan dawadu ku jirin waa 2,000. waa fursad ay u baahnaayeen inay helaan dad badan oo aan heli jirin haddii ay dhabeelaan arrin ama dadaal ay kaga soo kabtaan. Dr. Yaasiin ayaa waxa uu yahay maamulaha cusbitaalka hawshan qabtay. Dr. sidee bay idinku suura gashay in indhabeeris aad u samaysaan dadkan aad u adeegteen? Bismillahir Rahmanir Rahim. beeristani waxay ku timi in xanuunka la ogaaday inuu yahay xanuun aad inoogu badan. da'duna ay tahay da'ihii waaweynaaye caadka aynu odhan jirnay aan ahayn ay tahay in nabaro ama infections badan oo meesha ku dhacay, caabuq badan oo isha ku dhacay uu keenay in xuubkii yaraa ee isha dul saarnaa uu dhaawacmay, aragtidiina ay isbedeshay. maamulka cusbitaalka waxa ay sheegeen in maadaama ay ku guuleysteen qalliinkan qaybtiisii ugu horeysay in ay wadi doonaan dad badan oo kalena ay uga faa'iideyn doonaan iyadoo imakaba ay diiwaan gashan yihiin 12 qof. Sidiiq Maxamed Burmad, BBC Hargeysa. ugu dambeyntiina nala daawo muuqaaladan bilicda Sancaawa jasiiradda leedahay Inglis ee ku taala dalka UK ayaa sawir qaaday maxalli sawirada ka qaaday cajiibka badda midabada cajiibka aad arkaysa walacda haya biyaha badda daawada caladan u leedahay. intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa. waa ku mahadsantiin daawashadiina. intaaynu mar kale dib u kulmayno hadduu eebba idmo berritoole waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo aniga iyo bahda Soomaali Telefishinka ee London joogtaaba. Thank you.